fadhigii saaka ee mudanayaasha Golaha Guurtidda Somaliland ayaa loo qaybiyey xeerka Garyaqaanka Guud waxaana fadhigaasi oo ay ka soo xaadireen badi mudanayaasha golahaasi shir gudoominayay gudoomiyaha golahaasi mudane Saleebaan Maxamuud Aadan waxaanu markii xeerka loo qaybiyey ku wargeliyay in ay soo akhriyaan inta laga gaadhayo maalinta Sabtida haddii Ilaahay qadaro oo doodiisa si rasmi ah loo gudagali doono hadda la idin qaybinaya ninkaan xeer u baahnayn oo golaha ka bax مغودة باو كغيرنا يا واد ورا غودة لو بعضها لا وضيع كل هذا الشعب بوش عدو Golaha خلل هجلين وروان لقينا يا وحياليسان ما أنت بريت يصاد بابا مقناضة ما هذا الكديسان ما تورنا وضع ده مركانا بيستاني شيء مرة بيستان بريتشو يصاد بابا الله مقناضة سبت ذي كودي أروسون السيادة الله يراه أينو آتو مالي وناكس